muqdisho waxay ka soo kabanaysaa dagaallo iyo dhibaatooyin heerar kala duwan soo maray oo in muddo ah ay dhex muquuranaysay waxaa isgarab socda dadaallo ay wadaan dowladda dhexe ee Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo dowlado saaxiibo la ah Soomaaliya kuwaasi oo dhammaantood isugu soo biyo shubanaya caasimadda Muqdisho laga masaxo wixii ay soo martay hase ahaatee waxaa soo ifbaxay dad si gaar ah u isticmaalaya ama ku ciyaaraya adeegyadii bulshada ka dhaxeeyay ee dib loo howlgeliyay tusaale ahaan dowladda Turkigu waxay dayactir xooggan ku samaysay marshabiyeedyada qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho durbaba markii gacanta laga qaaday ayaa dadi bilaabeen in ay ku ganacsadaan inta kumaysan ekaysan meelaha qaar sandaqado ayaa la dul saaray marshabiyeedigii sida muuqaalka aad ka dheehan kartaan halkaani waa isgooska number 4 marshabiyeedigii loogu tala galay in dadku ay maraan si aanay gaadiidku u jiirin dad ayaa ganacsi la dhex fadhiya dadka iyo gaadiidka si isku mid ah ayay wadada bartamaheeda u marayaan dadkani qatar ayay ku jiraan xilli waliba waxay u nugul yihiin in gawaaridu jirto haddaba waxaa la isweydiin karaa yaa mas'uul ka ah in ay ilaaliso adeegyada bulshada in si gaar ah loo isticmaalo ka sokow in dawladdu mas'uuliyad ay ka saaran tahay dadku waxa ay fahmi la'yihiin in ay ilaashadaan waxa dadka ka dhaxeeya inta arrintaani ay taagan tahayna way adag tahay horumar in la sameeyo duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaan wax ka weydiinay arrintan midda gobolku uu lukuleeyo waxa way jidadka in la hagaajiyo nal in la geliyo in la nadiifiyo jidadkii in bilicdi magaalada la soo celiyo laakiin nasiib darrada waxa way dadkii baan nala fahmaynin in maaragtay wanaagaas oo dhan هذا مثل مشابهية هذا اللي دسي دبا جينجت ربع إنه كتب بسام جينجت داس دي اللي جبيه وحليه لأنك نرول بنلودي نرول مرك نرول سحن لور هذينا هو مرك دبعت هذا سواء جفتا ضد كل عقد اللي نفتقد إيمان كي باكبح العقب ليه هي سرشن دبق بو السارنا هي يحور ربع إنه مشابهية دي جوست أما هالمتر إنه صوغ ربع أو إنه يحرتوا ربع لو متر مشابهية دي إنه يحرتوا أسوق بركوسة مستأشياء اللي وعبوا ربع يا سيا سجى شعب كاس كلا دد كان لوجو تلا جلاي حقوم مريا مركا كان دي أنت كور لو قاضو دور لوجو حرته كان إنها على حقوم مريا بدك إنها لو أركيني بدردري مسجدكم مريا جد كادو مرة لدردريا مسؤولك سجى مسؤولك قف كاس السبب أكسيدنت كسب bartamaha suuqa Xamarweyne dhawaan maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay'adaha amniga dawladda waxa uu ku guuleystay in uu burburiyo dhammaan ganacsigii sharci darrada ahaa oo dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan jireen waxaa soo baxay muuqaal wanaagsan oo suuqaasi uu yeeshay laakiin ma waarin si tartiib ah ay goobahaasi u soo laabteen ciriirigii suuqa ka taagnaan jiray ayaa dib loogu noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaan su'aalnay cidda mas'uulka ka ah dabagalka talaabooyinka dhinaca horumarka loo qaaday degmo kasta gudoomiye leedahay gudoomiyaha mas'uulka ah degmadiisa annagu haddaan gobol ahaan abaabul inta galnay aan degmadii jidadkii ka hagaajinay jidadkii ka samaynay dadkii ka kicinay ka qalab la geliyay lacag la geliyay ciidan la geliyay wax badan la geliyay haddii lagu soo noqdo yaa mas'uulka ah gudoomiyaha degmada la rabaa inuu ilaaliyo gudoomiyaha degmada mas'uulka ah in uu jidka aan la dhisan مثل مركب gudoomiyaha degmada qaraabadiisa dhisatay مثلا ninka haduusan qaraabadiisa ka adkayn dadba ma aha reerkiisa waa inuu ka adag yahay intuu haduusan sharciga reerkiisa ku fulin karin reer kale miyuu ku fulini marka gudoomiyaha degmada laga rabaa jidadkooda iyo jardiinkooda iyo dhulka dadka dhaxeeya degmo kasta gudoomiyaha degmada mas'uulka taas waxa si dheer ciidamada booliiska ka mas'uul municipiyada ka mas'uul dadkaas oo dhan oo isla shaqeeyaan rabo systemka inuu sidaas isla shaqeeyaan rabo لكن هدي له ترسل إنديس ترسل حق هالقف وين محمد سمين كرا محمد سمين كرا أنا حمر وين المروة حنوسني أنت المروة حنوسني ورهلا ما يلبى المروة حنركي قشني يلا قدوميه قدومي ماشي الحال ما أنتوا حنصامر جد دحبرتن كيف قشن كيلو دادي لا من دحبرتن كيس أو سوق ودو أي كاران أي بابور وسق وده أي كس ودادي دحبرتن كيف وسدا صدق إلى ما يكون أريم لما أركيم يلا يديه كرا شعب ما أركينين منك بابور كاس كالرجاها انتو قشن سوق هذا مالك استوى كسوق هذا انتو قشن سوق هذا لا مقد حبرتن كيس كفور ريو كداتشي شعب كالصومالي ده ماشي دقن أما كوكنا حسنا ما أركين من ذكر
markiiba guddoomiyaha waa anigu degmadii ma joogo ma arki karo war guddoomiye maxaa dhacay meeshaan u ilaalsan waa baxay marka waxaa la rabaa guddoomiyaasha in ay mas-uuliyadda ay qaadaan keligoodna wax ma qaban karaan sidaanan keligii wax u qaban karin wax keligood wax u qaban karin duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan ayaa ugu dambeyntii sheegay in magaalada muqdisho ay hiigsanayso in ay la mid noqoto caasimadaha dunida ee la jaalka ah maxamed cabdulaahi xaaji telefishinka qaranka Soomaaliya muqdisho.